filla Soomaaliya oo sheegtay in Xasan Sheekh Maxamuud uu hubkii ugu qatarta badnaa iyo sidoo kale ciidan aad u fara badan uu u doontay waddanka Itoobiya. haddaba daawade waxaan ku soo gudbin doonaa hubkan qatarta ah noocyada uu ka kooban yahay ee sida gaarka ah u dalbaday madaxweynaha waddanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ciidamadan faraha badan ee uu dalbanayo si ay kaga barbar dagaalamaan ciidamada xoogga dalka ee ciidamadii Itoobiyaanka oo dib loogu soo celinaya iyo xilliga la soo celinaya ciidamadaasi oo gudaha waddanka ay u soo galayaan ayaan kula wadaagi doonaa daawade balse ka hor warbixinteeda waxaa ka codsanayaa daawade inaad muuqaalkan like taabato si uu meel dheer u gaaro sidoo kale tana aad subscribe taabato channelkeena si aan mar waliba kugu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xasaasi oo aan halkan ku baahino daqiiqada xigta. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku jooga magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya uu si weyn uga dalbaday dhigiisa ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed hub aad u tiro badan iyo sidoo kale ciidan loo yaqaan ciidamada Itoobiya si ay kaga barbar dagaalamaan ciidamada xoogga dalka ee xilligan dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo garabka helaya dhigooda ciidamada macawisleyda loo yaqaano. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gaaray magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya ayaa wada hadallo kula jira ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. haddaba waxyaabaha ugu xoogan ee laga wada hadlay sida weyn uu diirada u saaray madaxweynaha waddanka ayuu banaanka keenay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad. wasiiru dowlaha oo kamida wafdiga ee sida weyn madaxweynaha uga garab siinaya sidii ay Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkooda loo wanaajin lahaa ayaana wareysi kooban waxa uu siiyay idaacadda VOA-da waxaana uu ku shaaciyay in Soomaaliya ay ka doonayso dhanka iyo Itoobiya inay si weyn uga garab siiso dhanka iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyaga oo ka dalbaday hub aad u culus iyo sidoo kale in ay ka garab siiyaan ciidamo ka dagaalama ama ka barbar dagaalama ciidamada xoogga dalka. waxa uu sheegay in Itoobiya ay muhiim u tahay Soomaaliya marka loo eego hiigsiga dawladda sida la dagaalanka Al-Shabaab isagoo xusay in Itoobiya iyo dalalka kale ee deriska nala ah aysan aad uga maarmayn dagaalkan ay dawladdu kula jirto kooxda Al-Shabaab. waxa uu sheegay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad waxana uu xusay in saadka ciidamada ay Soomaaliya aad uga liidato ayna aad u doonayaan ujeedka ugu weyn ee u aadeen Itoobiya uu yahay sidii looga caawin lahaa Soomaaliya xagga saadka ciidanka isla markaana ay Itoobiya ka mid tahay ayuu yiri dalalka ugu waaweyn ee soo saara hubka ugu tirada badan geeska Afrika iyo sidoo kale hubka ugu qatarta badan ee geeska Afrika. madaxweynuhu waxa uu ku baaqay ayuu yiri dagaal shacab ah kaasi oo ka jawaabaya baaq uga yimid shacabka oo hubka qaatay ayuu yiri haddana madaxweynuhu waxa uu dalka Itoobiya ka raadinayaa kaalmo dhanka dagaalka ah. Itoobiyana waxay ka mid tahay wadamada hubka sameeya ayuu yiri wasiir Cali Balcad. dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ayuu sidoo kale xusay ayuu yiri in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada arrinsanayaan sidii la isaga kaashan lahaa isagoo meesha ka saaray in wax madmadow ah uu ku jiro xiriirka labada dal. madaxweynaha waddanka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu xilligan nagi ku yahay magaalada Addis Ababa oo shalay si weyn loogu soo dhaweeyay kadib dhowr jeer oo uu isku dayay sidii uu kula kulmi lahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo ka biyadiidanaa in ay wada kulmaan waxaana dadka sida weyn u taxliiliya arrimaha siyaasadda ay ku sheegeen in Abiy uusan doonayn in ay Xasan Sheekh Maxamuud miis wada fadhiistaan kana hadlaan arrimo badan balse waxaa jirta xogo badan oo aan idiin soo gudbin doono barnaamijka ku xiga ee uu Abiy Ahmed u ogolaaday inuu Xasan Sheekh Maxamuud miis la wada fadhiisto si ay labada dalba uga wada hadlaan arrimaha ugu muhiimsan ee iyaga
isaga baahan yihiin haddaba ra'iisul wasaare abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa kulankooda waxyaabaha hordhaca ee xilligan ee laga calaamaynayo oo uu wasiiru dawlaha arrimaha dibadda cali maxamed cumar cali balcad uu xilliganba ka dhawaajiyey ay ka mid tahay in madaxweynaha waddanka xasan sheekh maxamuud uu dhiggiisa abiy axmed ajandaha ugu weyn ama waxyaabaha ugu weyn uu kaga arrinsanayo ama uu la hortagay ee qayb weyn ka tahay sidii Soomaaliya xilligan uga saacidi lahaa dagaalada xooggan ee ka soconaya gobollada dalka in uu qayb weyn ka noqdo ama ay qayb weyn ka noqdaan ciidamo u dhashay waddanka Itoobiya kuwaasi oo ka barbar dagaalami doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale tana saanad aad u xooggan iyo hubna ay uga baahan yihiin sidii ay uga caawin lahaayeen ciidamada waddanka haddaba waxa uu sheegay xasan sheekh maxamuud in waddanka ama ciidamada xoogga dalka inaysan haysan hub ku filan iyo sidoo kale saanad ay ku dagaalamaan waxaan uu sheegay inay uga baahan yihiin hub iyo sidoo kale saanad ciidan oo ay ku dagaal galaan waxaana xilligan si weyn ugu dhaliilayaan dadka arrintan ka falcelinaya in madaxweynaha dalka isaga oo haysta ciidamo kor u dhaafaya ilaa iyo 5,000 oo askari oo lagu soo tababaray waddanka Eritrea diyaarna waa xilligan aadna la isugu weydiinayo sidii loo soo qaadi lahaa ciidankaasi iyo xilliga la keenayo in xilligan uu dhigiisa waddanka Itoobiya oo xaalado kacsanaan siyaasadeed iyo mid amniba uu ka jiro iyagoo dagaalo sokeeye ay ka soconayaan haddana uu weydiisanayo ciidamo iyo sidoo kale hub waxaana dadka ugu badan ay isweydiinayaan Itoobiya ma waxay noqotay wadamadii Carbeed ee hubka gadi jiray iyo sidoo kale wadamadii bariga dhexe aadka lacagta u haystay mar waliba ciidamada qalabeyn jiray waxaana aad loogu dhaliilayaa in madaxweynaha isagoo arkaya in ka badan 5,000 oo wiil oo Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay dalkooda u dhintaan oo difaacaan in uu hareer maray kadibna uu dhanka iyo Itoobiya ka codsanayo ra'iisul wasaarahooda sidii uu garab xooggan kaga siin lahaa dagaalkan isagoo doonaya inuu gudaha u soo geliyo ciidamada Itoobiya kuwaasi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada dawladda waxaana daawade adiga ra'yigaada noogu reebi kartaa qaybta commentiga sidee u aragtaa in madaxweynaha waddanka isagoo haysta ciidamo gaaraya in ka badan 5,000 oo askari oo u dhashay waddanka doonayana inay waddankooda u dhintaan oo difaacaan inuu gebi ahaanba iyagii hareer maray kadibna uu dalbaday ciidamo u dhashay waddanka Itoobiya si ay qayb weyn kaga noqdaan dagaalada xilligan ka soconaya dalka oo ay ku wada jiraan ciidamada dawladda oo garab ka helaya dhigooda waa ciidamada loo yaqaan macawisleyda oo dad deegaanka oo is abaabulay kuwaasi oo si weyn dagaal kula jira kooxda al-shabaab ra'yigaadu waa noo muhiim daawade haddii aad nala soo gaarto qaybtan waxa ka codsanaya daawade inaad muuqaalkan like taabato si uu meel dheer u gaaro u sii sheergaraysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay inaan soo gudbino xog xaqiiqda ku salaysan iyo warar xasaasi